waxgaradka odayaasha culimo awdiinka iyo dhalinyarta ka soo jeeda maamul goboleedka cusub ee koonfur galbeed ee 6 gobol ee Soomaaliya ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa ayaa maanta kulan ay iskugu yimaadeen. caasimadda Hargeysa waxay taageero buuxda u muujiyeen maamulka cusub ee maamul goboleedka 6 gobol ee Soomaaliya ee koonfur galbeed. kulankan oo muddo badan qaatay waxa ka hadlay badiba مسؤولينتي كسو قيب قشي odayaasha waxgaradka iyo culimadiinka waxaana hadaladooda kamid ahaa waxaan halkaan ku soo jeedinaynaa mar labaad dawladda koonfur galbeed ee 6 gobol ka kooban taageero buuxda xukuumadda shacabka waxaan la garab taaganahay oo la garab taagnoon doonaa hadii ilaahay ka dhago laakiin waxaan taageero buuxda taageersanahay qadiyadan la isugu yimid mawduucan taageerada koonfur galbeed ay gartaan danahooda waxa dhan Soomaaliya oo dhan ay soo haysataa waxa la isku haystaa waxa weeyaan waa goboladaasi 6 gobol ah iyo 3 gobol kale ee ka maqan ee kheyraadkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku jiro ee dadkii deganaan ay ka qatan yihiin wax kale oo la isku haysto ummadaasi ka dhaxeeya ma jiraan sababta la isku haysto goboladaasna waxay noqotay dadkii deganaa oo seexday ninkii seexdaasi ay dib galay waxaan baliyanayaa جمهورية سوماليلاند نتاجرتي إن من نصرت جلسي إن شركة قانون. وحكران تعصيب الدرية وضياشي للاهي برمجة لها دسي دولة كونفور قلبات ملح لها. وحكران باقي الدرية دولة الصومالية سدا أي وقصي حتى أرنتاس أنا واسا نوارنا هذا هاي وأمة الشعب كا اسمها دولة كونفور قلبات. أنا جنا تاجر أفيا قدم بقى وحي أودي إذا أحيانا نجيسن كروان نجيسننا محيا وإحنا من سنة هاي إن نهدد كي قولات كسر جدي حقنا ونقول إن هاي إن وحنا دوننا عن سمي سنة. أدبنكم هتعلنا يا أو مسلم يا ذك حفلة كسر قيب قلي. وعيقنا كهذا سلادين تا بيرلها كسر جدا دعامداسي كردقان مقالة هرجيسة. ذك كهذا كوانكا أيوجم هذا علي دولة الصوماليلاند يددوينها الصوماليلاند سيدنا نبت جليدا يقول إحنا اليهين كدب مركي أي كسر بركعين ودن كودي هويو الصوماليا. وعكلا أي كهذا المسؤولين تي وحجرت كي كهذا كوانكو oo ay cambaarayeen dilkii fooshaxuma ee loo geystay qaar kamid ah odayaasha deegaankaas ee lagu laayay deegaamada joogsan mayso qadiyadaasi waa qadiyad balaaran weeye kuma joogsanayso rag la laayay iyo odayaal la laayay iyo ergel la laayay kuma joogsanayso way soconaysaa waxaan aad ugu mahadcelinaynaa oo aad muxuu ahaa u garab taaganahay ragii qadiyada ay soo taagay ragii agaasimay ragii dhaqaalaha ku bixiyay ragii maxaan ku yiraahdaa gudoomiyay ayaan aad ugu mahadcelinaynaa waana ku garab taagan munaafiqiinta doonaya mijaxaabinaya doonaya in ay fashilanto 3 gobol ku soo koobay hawshoodii fashilan tahay waxa la yaalo waxay ka qaadayaan ma jiraan ugu dambeyntiina waxay fariin u direen odayaashii iyo waxgaradkii ka hadlay kulanku dawladda Soomaaliya oo ay uga digeen in ay faragelin ku sameeyso maamul goboleedka cusub ee koonfur galbeed ee 6 galbeed iyaga oo sheegay inay dawladdu la shaqeyso maamul goboleedkaas cusub waa markii ugu horeysay ee bulshada ka soo jeeda maamulka 6 gobol ee koonfur galbeed ee Soomaaliya ee ku dhaqan caasimadda Hargeysa ay kulan noocan iskugu yimaadaan taageero buuxdana ay muujiyaan maamul goboleedkaasi cusub. Cabdiqani Xasan Cilmi Cabdiqani Dawlad Kalsan TV Hargeysa.